mid ka mid ah 10kii jannada loogu bushaareeyay kii ugu khayrka badnaa nebiyada kadib ummadda wasiirkii koowaad ee rasuulka saaxiibkiisii iyo rafiiqiisii maalintii hijrada deeqsigii islaamka abubakar sidiiq radiyallahu anhu إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، waxaan ka soo jeedinaynaa taariikhda أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر wuxuu ahaa rukun weyn oo arkaantii ay ku taagantay dowladdii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladii uu fidinay. أبو بكر waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay rukunkii kaliya ama koobaad ee aasaaska ahaa ama lugihii uu isku taagay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam bilowgii dacwadiisa. أبو بكر markaan ka hadlayno noloshiisa waxaan ka hadli doonaa أبو بكر قبل الإسلام waxaan ka hadli doonaa أبو بكر في الإسلام أبو بكر waxaan ka hadli doonaa بعد الهجرة waxaan ka bilaabi doonaa من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق waa kuma أبو بكر magacaas أبو بكر الصديق magaciisa caadigiihi waa عبد الله لكن أبو بكر مجلس هذا نستول تاجنو أبو بكر وكلمة مركبة ويسكن ركبة بكري واحد من عربته ولد كوهر رأي قفر نشا لكن أبو بكر ملهين ولد بكر لرا سادرتيت بالله هذا أبو بكر ومجع أو نانيسة الصديق أو مجع لقب كيسة أما نانيستي سأ kunyada waxa la yiraahdaa carabta isticmaasho oo waa ninkii hebel dhalay oo kale weeye Abu Ali iyo Abu Muhammad iyo Abu Hasan iyo saas oo kale weeye laakiin laqabku waa sifada dambe ee Sidiiq waxa la yiraahdaa Abu Bakr Sidiiq Sidiiqaasi halkuu ka yimiday waan eegi doonaa ee waxaan ka bilaabi doonaa Abu Bakr waa kuma Abu Bakr waa Abdullah ibn Uthman بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة. أبو بكر وحيسكوه مادين النبي عليه الصلاة والسلام أوج اللحد أو ابن مرة بن كعب يسكوه مادين بقي سنو عبد الله. أبو بكر وحلو رجري رضي الله عنه وحلو رجري عبد الكعبة يلو رجري رسولك أيا عليه الصلاة والسلام أبحيي إن عبد الله لا يراهضه أو مقعاس الله سميه. أبو بكر رضي الله عنه أبيه وحوها أبو قحافة أبيه دليوي ومقعيسان يراهضه عثمان بن عامر وذاكاس أبيه أو قبيلة تيم لا يراهضه كسوجيده أو قريش قبائش قريش هذا waxaa dhashay islaan loo oran jiray Qiila bintu Adaat ibn Riyah loo oran jiray. Abu Quhafa wuxuu islaamay fatxu Makka oo waa nabiga waa Abu Bakr radiyallahu anhu aabihi. Abu Quhafa wuu noolaa ilaa iyo Abu Bakr aw dhimanayay radiyallahu anhu. waxaa la yiraahdaa Abu Quhafa wuxuu dhaxlay Abu Bakr dhaxalkiina wuxuu siiyay inamada Abu Bakr ayuu ka qayb galiyay markii dambe. Abu Quhafa oo dhintay 14kii hijrada waxay ka dhigan tahay umrigiisu oo weyn ayuu dhintay 97 jir ayuu dhintay. Abu Bakr radiyallahu anhu hooyadii waxa loo oran jiray Ummul Khayr Salma bint Sakhr bin Amir ibn Ka'b. waxay iskugu imanayeen halkaasi Abu Bakr aabihii iyo hooyadii waxay iskugu imanayeen Amir bin Ka'b iskugu imanayeen iyaduna reebayn bay ahayd way islaamtay hijrada ka hor ayay islaamtay inankeeda Abu Bakr ayay la islaamtay waxayna dhimatay Abu Quhafa Abu Bakr aabihii ka hor ayay dhimatay iyaduna radiyallahu anha
hooyadii abubakar oo umulkhayr loodhan jiray abubakar radiallahu can dhalashadiisa wuxuu dhashay baa la yidhi hijrada ka hor nebigana calayhi salaatu salaam 2 sano ayuu ka yaraa baa la yidhi caamulfiil kadib buu dhashay marka caamulfiil nebigaa dhashay abubakarna 2 sano ka dib ayuu dhashay sida raajixa ah inuu caamulfiil dhashay se la isuga khilaafsanaa abubakar hijriya marka la eego miilaadiga wuxuu dhashay 573 markii ay ahaa miilaadigu ayuu dhashay 573 markuu miilaadigu ahaa ayuu abubakar dhashay abubakar wuxuu ku barbaaray magaalada maka wuxuuna ku barbaaray barbaartinimo qurux badan oo dadka ashraafta ah ee madaxda ah ee maamuusta leh ayuu ku beegay jaahiliyadii wuxuuna ahaa abubakar nin la jeclaa oo ay quraysh iyo maka dhexdeeda laga jeclaa wuxuuna lahaa karaamo iyo sharaf ay reer quraysheed ku aaminsanaayeen ilaa loo xil saari jiray inuu ururiyo magta uu dabbaro uu ka mas'uul noqdo magaha iyo markay dagaal la dhacaan dadka wax kala furdaamiya ayuu ahaa haddii uu soo qaado mag iyo mas'uuliyadeeda reer quraysheed way rumaysan jireen radiyallahu canhu lianna wuxuu ahaa qof magac iyo maamuus ku leh waxa uu isagu soo xambaaray ee mas'uuliyada hadday magangeliyo tahay iyo hadday magdhow tahayba waa lagu aqbali jiray waxay yidhaahdaan carabtu sharafta quraysheed jaahiliyadii 10 nin oo 10 qabiil ka soo jeeda oo quraysha ayay sharafta reer quraysheed ku dhannayd baa la yidhaahdaa oo naanays looga dhigaa waxaa ka mid ahaa baa la yidhi kow cabbaas binu cabdilmutalib oo nebiga adeerkiya oo reer bani haashim ahaa iyo abu sufyaan ibnu xarb oo reer bani umaye ahaa iyo cuthmaan ibnu talxa ibnu zamca oo bani asad ahaa reer bani asad ahaa iyo abubakar sidiiq oo reer bani taym ahaa iyo khaalid ibnu waliid oo reer bani khusayme ahaa iyo cumar ibnu alkhataab oo reer bani cadi ahaa iyo safwaan ibnu umaya oo reer bani jumax ahaa 10 nin oo 10 jilib ka soo jeeda ayaa reer quraysheed sharaf iyo maamuus u lahaa oo abubakarna ka mid ahaa raggaasna aad imika soo maqlayseenna waa raggii ugu cadcaddaa ee ugu doorka roonaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar jaahiliyadii wuxuu ku sifoobay baa la yidhaahdaa sifooyin ay ka mid tahay aqoonta nasabka carabta nasabkeeda iyo qabaa'isheeda ayuu yaqaanay caalim buu ahaa akhbaarta carabta yaqaana wuxuu macallin u noqday oo weliba baac dheer ku leh ilaa lagu tilmaamay inuu u noqday macallin dadkii nasabka ugu yaqaanay carabta sida caqiil ibnu abi taalib oo kale iyo jubayr ibnu mudcim iyo isaga macallin u ahaa baa radiyallahu anhu wuxuu yahay taasi baa la yidhi sifo ay ku jeclaayeen quraysh iyo carab dhammaantood sifada nasaabiinta nasabka yaqaana ku xaraf nasabka ku xarfaanta ah ee abtirsiinta iyo xididka yaqaan sifo ka duwan buu isagu lahaa oo ka mid tahay baa la yidhi ansaabta ma caayi jirin nasab kasta oo qabiil oo bartana intiisa cayda ma soo qaadi jirin ayaa la yidhi wanaagga unbuu sheegi jiray radiyallahu canhu sidaasay ku yaqaaneen waxaa laga wariyey abubakar inuu ahaa anna abaabakar kaana aclama qurayshi biansaabiha inuu nasabka ugu yaqaanay quraysh waxa kale oo abubakar lagu tilmaamaa oo lagu tusaale xasuustaa baa la yidhi jaahiliyadii inuu ahaa nin tijaarada aad u yaqaana ابن كثير وحيري رضي الله رحمه الله كان رجلا تاجرا وحهان بايع مشترى ذا خلق معروف أو أخلاق ليقان أو عظيم له
dadka qowmkiisuna way u iman jireen wayna ku xidhnaan jireen oo weliba arrimo badan bay ugu xidhnaan jireen oy ka mid tahay licilmihi cilmigii nasabkuu yaqaanay litijaaratihi tijaaradii au ku baarac dhaafay oo meel ku gaadhay iyo wa xusnu khuluqi marka nin loo yimaado oo la tiigsado oo lagu urursan yahay buu ahaa abubakar radiallahu canhu tijaaradiisa waddanno badan buu ugu dhoofay meel uun ma joogsan shaam buu tegey basruu tegey shaam iyo ardu shaam ayay basra ka mid tahay magaalo waxay ahayd ay Greegu lahaayeen oo dhiseen baryo hore oo xilligaana Ruumaanku ay haysteen oo taariikh badan leh oo carab badan ay degantay hadday carabtii qasaasinada tahay iyo hadday manaadiradii tahay waxaa la wariyey inuu abubakar radiallahu canhu au arkay ru'yo isagoo shaam jooga ru'yadii uu arkay ayuu ka warsaday raahibkii baxiira la odhan jiray oo nebiguna la kulmi jiray ayuu ka warsaday u war doontay inuu u fasiro ru'yadii wuxuu ku yidhi halkeed ka timid adigu wuxuu yidhi makaan ka imiday wuxuu yidhi adigu qowmamka reer maka midkee tahay ma quraysh baa tahay haa quraysh baan ahay buu yidhi maxaad ka qabataa buu yidhi adigood meheradaadu tahay nin taajira ayaanoo baayac mushtara buu yidhi wuxuu ku yidhi ru'yadaada hadduu ilaahay run ka dhigo oy rumowdo waxaa la soo saari doonaa nebi qowmkaaguna ka soo bixi doonaa waxaanad u noqon doontaa wasiir noloshaada waxaa la yidhi abubakar sidaa ku qoran kitaabka khulafaa uraashidiin maxamuud shaakir abubakar radiallahu can uu qarsan jiray sirtaasi cidna iskagama warrami jirin abubakar waxaa lagu yaqaanay sifooyin aanay ummaddii jaahiliyadee meeshaa ku noolayd lahayn waxaa ka mid ahaa sifooyinkaas inuu abubakar radiallahu can khamri cabin jaahiliyadii khamriga la wada cabi jiray abubakar khamri ma cabin ayaa la yidhi abubakar wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi urteeda iyaaban anigu idhibta iska daa inaan cabbi'in urteeda meel ay ka dhowdahayna ma mara buu abubakar sanam uma sujuudin baa layidhi wuxuu abubakar yidhi waalidkii i dhalay abuquxaafa intuu i qaaday ayuu ii geeyuu yidhi asnaam wuxuu igu yidhi haadihi aalihatuka shumu lcawaali waa kuwan ilaahyadaadii sharafta lahaa ee maamuusta lahaa ee korreeyey ee bal ka faa'iidayso buuri uu iiga tegey buuri markaa uu iiga tegey waxaan is-idhi buuri aniga naftaydii sanamkii baan la hadli bani inuu ila hadlo uu ila hadli waayey buuri waxaan ku idhuu yidhi aniga oo la yaaban baan si kamaadaysiya ayaanu idhuu yidhi innii jaa'icu fa adcimnii sanamow cunto isii baan idhu yidhi waan gaajaysnahe waxaan haddana ku idhu yidhi innii caarin fa aksinii waan qaawanahe dhar ii xidh baan ku idhu yidhi wuu ii jawaabi waayu dhagax baan madaxa ka saaray waan iskaga tegey abubakar radiallahu can sifooyinkii ugu qiimaha badnaa ee uu ku sifoobay markuu islaamka soo gelin waxay ahayd sifooyin u dhow kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay nagu anfaco way noo sii socon doontaa silsiladda abubakar radiallahu can assalaamu calaykum